سلام الله عليكم إذا لهانتين بخيارته وذا نقل حريدا إيميل كاسته هو الدنيا كجوكتان ومركله يوحبنتين فاقدادا waxaana daawadayaal barnaamijkeenan diirada ku saari doona haduu rabbi maxaaladii ugu dambeeyay ee ka soo cusboonaada dalkaasi Ethiopia Getachew Reda waa madaxweynihii dhawaan loo doortay iyo waliba Debretsion Gebremichael ayaa ugu baaqay shacabka Tigreega in ay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee gobolka Tigreega wuxuuna tilmaamay in Abiy Ahmed iyo waliba dalka Mareykanka ay ka wada shaqeeyeen sidoo madaxweyne ku noqon lahaa Getachew Reda qodobka ayaan ku dul istaagi doonaa iyo xogaha ku gadaaman dhanka kale waxa la tilmaamayaa in amxarada iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay kala xarig furteen dalka Eritrea ayaan ururinaya mucaaradka dalkaasi Ethiopia kadib markii ay diiday baa la yiri arad kiilo inay u khuduucdo amaba ay hogaanka u dhiibato dalka Eritrea waa siyaasad warqiya Somaliland asxaabteeda mucaaradka ayaa si adag uga hadlay xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan ka maqnaan doonin koonfurta Soomaaliya oo la tilmaamayo kooxda Al-Shabaab birta laga aslay qodob kale ayaa inoo raaci doona daawadayaal barnaamijka waxa ay qayb qaadanaya saaxiibka shida iyo waliba gooni oo inta badan ka faalooda xaaladihii ugu dambeeyay ee geeska Afrika hadaba hadii aan ku horeyno saaxiibka shida oo inta badan anbaba in dhawaalaba la socday xaaladda ka taagan dalkaasi Ethiopia shidow bal nooga waran xaaladda dalka Ethiopia aad iyo aad baad mahadsantahay farogado xaaladda dalka Ethiopia waxaad moodaa in marka ka dambeysay waji hor la yeelanayso isxulufaysi aad u balaaran ayaa ka socda magaalada Addis Ababa oo ay ku doorayaan wajiyo cusub inay soo horfadhistaan ama ay sameystaan gaashaanbuur aad u balaaran sidii loo ogsoonaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo qoomiyadda Axmaaradu si weyn ay wada shaqeynayeen sanadiyadii ugu dambeeyay ama intii dagaalka xooggan lagu jiray xoogaga TPLF ayadoo Axmaaradu ay doonaysay inay ra'iisul wasaaraha Ethiopia garab ka siiso dagaalkii TPLF la galay ayna rabtay in gabi ahaanba wax la dhaho TPLF ama xisbiga TPLF inuu ka sii jiro dalweynaha Ethiopia ama mar kale ay saaxada siyaasadda ku soo laabtaan iyo fagaarayaasha ayadoo Axmaaradu ay ku doonaysay arintaasi inuu Abiy garab ka siiyo guud ahaan Tigreega meesha laga saaro waa TPLF arintaasi Axmaaradu si weyn ugu hongowday ayaad moodaa mar kale in ayaga arintii ay dib u rugmatay TPLF waxay ahaayeen xoogag aad u awood badan oo muddooyinka ugu dambeeyay dalweynaha Ethiopia taladiisa ayagu ay udub dhaxaad u hayeen ama ahaayeen dadka kaliya ee go'aamada ugu dambeeya masiirka gooya dagaalkii la galay TPLF waxaa markii hore gaashaanbuuraha Axmaarada iyo Abiy Ahmed hadda waxaad moodaa inay TPLF iyo Abiy Ahmed markale gaashaanbuur noqonayaan oo Axmaaradu ay noqon doonaan goobta sida weyn loo weeraro qolada yacni banaanka loo saaray qolada guud ahaan siyaasadda laga saari doono hadda Axmaarada waa Axmaarada saaxada ayay ka sii baxayaan Getachew Reda iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxay ku heshiiyeen inay dhistaan siyaasad buuxda oo Oromiya Tigreey anfacaysa ayadoo Axmaarada arintaas laga qayb gelin Axmaaradu waxay qoladii dabka soo gashay ee Tigreey la dagaalantay marka Axmaaradu hadda qayladaan aad balaaran bay dirayaan oo ah inuu Abiy Ahmed khayaanay inuu TPLF mar kale soo celinayo in ay dagaal la gali doonaan iyadoo xoogagga mucaaradka ee Axmaaradu ay u kala boqoleen meesha iyo dalka Eritrea ay u boqoleen oo inay doonayaan inay mar kale afweerka ay ka dhaadhiciyaan inuu dagaal culus la galo dawladda Ethiopia marka Abiy Ahmed meesha siyaasaddu meesha ka dhaxarkay waxa waaye haduu Tigreey waa xoog loo baahan yahay inuu garab ka dhigto haduu Tigreey garab ka dhigan waayo wali awoodda Eritrea ee gudaha Ethiopia sanadiyada ugu dambeysay ay ka sameysatay wali way jiraysaa marka haduu Tigreey garab ka dhigto Eritrea Tigreey waa qolada kaliya ee Eritrea iska difaaci karta ama guud ahaanba gaashaan noqon karta dawladda Ethiopia waxyaalo badan ka caawin karta waa Tigreey oo uu taageero Abiy karo marka Abiy wuxuu ku qasban yahay inuu xoogagga Tigreey taageero ka dhigto ama saaxiibka koobaad ka dhigto maadaama in Axmaaradu ay u barbardhigi kareen siyaasadaha kale Tigreeyna ay awood lagama maarmaana marka Tigreey soo dhaweysanaya Axmaaradan hadda albaabadu ka xiranaya marka Axmaarada talaabada ay qaadaan malfina ayadoo Axmaarada iyo Eritrea ay si weyn isugu dhow yihiin marka waa inay dagaal wuxuu noqon doonaa Eritrea Axmaarada la socota Abiy iyo Tigreey la socda shidu waxaa la tilmaamayaa arrintan inay ku qanciyeen dawladda Mareykanka oo isu soo dhawaanshahan Tigreega iyo waliba maxaan ku dhahay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inay ka shaqeynayaan dalkaasi Mareykanka waliba doonayaan in dhaqaale badan lagu siiyo sidii loo soo kicin lahaa gobolka Tigreega oo muddo 2 sano u dagaal ka socday marka arrintan ma la isdhihi karaa waa gobolkaasi Tigreega waxaad moodaa inuu ifafaala siyaasadeed uu ciyaarayo ama lucba siyaasiye waxa lagu yiraahdo afka Carabiga ma siyaasadu ciyaaraya Tigreey siyaasadda ciyaarayaan waxa waaye inay Dr. Abiy Ahmed ay ka soo wareejiyaan Axmaarada ayagu ku soo shubtaan marka ku soo shubtaan inay mabdigiisa iyo rabitaankiisa dhan ay sameeyaan dalalka reer galbeedka
goboleedka ay ku dacweeyeen ee dhaqaalaha Itoobiya ka jirta dhaqaalihii dib dowladda Itoobiya lagu soo fasaxo Abiy Ahmed markaasi maadaama ay Tigraygu qodhigoodu ay weli awoodoodii iyo dastuuradii iyo sharciyadii ay dhiseen ee dalka Itoobiya 27 sano kuma weli uu ka soo shaqeeyay sharci uu soo shaqeynay marka awood culus waa Tigray laga maarmaan way Abiy inuu Tigray la heshiyo uu ku qasban yahay dhaqaale badan baa meeshaas yaa ka imanaya sidoo kale dambiye waxa jira gobolka Tigray ka dhacay dagaalka 2 sano ka socday dambiyadaasi aan Abiy Ahmed lagu soo oogin waa inay Tigray Abiy ku maqraati furaan inuu dambiile ahayn xasaasha shakhsiyaad kala saaro dambiye badan oo laga diyaariyay baa jira gobolkaas xasuuq badan ka dhacay welina la raadinay shakhsi dhabarka loo saari lahaa marka Abiy Ahmed inuu Tigray heshiis la galo la heshiiyo madaxdooda soo dhaweey saaxiibtinimo uga samayso asaga iska moosay in dambiyada asaga tuma loo saaro marka waxa la raadinayaa shakhsiga dambigaas la saari lahaa marka hadda hawshu waxay u socotaa in saraakiisha ciidanka ee dagaalka hogaaminayay dambiga la saaro oo Burhanu Juula iyo shakhsiyaad kale dambiga la saaro Abiy Ahmed oo noqday in aan dambi gelin Tigray iyo Abiy ay markaas ku duumadaan wixii hore dhan hal bacaad ugu rasiin noqdo waxaa jirta in amxaaradu ay ka helaysaba la tilmaamaya qodobka haddaan meesha ku dhaafno waxaa la tilmaamayaa in amxaaradu ay ka helayso taageero dalka Eritrea oo ayada laftigeedu u xubsuubinayso Isyaas Warqi inay xiriir toos la yeeshaan si ay u hagardaamiyeen dowladda hogaaminaya Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed amxaaradu horseedo dowladda Eritrea ayadu marna Itoobiya nabada marka taariikhda Itoobiya siyaasada Itoobiya kala socota ayadu si ay siyaasadeeda gudaha Itoobiya uga shaqeyso Eritrea inta ku caanamasho marka Eritrea markasta ayadu waxay ka shaqeysaa burburka Itoobiya iyo xogaga mucaaradka ay maalgelisaa waqtiga Tigray jamhadaha Itoobiya ku kacsan oo dhan fariisimo waxay u hayaan dalka Eritrea halkaas ka soo duuleen oo laga soo hubinayay marka maadaama Eritrea Tigray ay laba marna heshiinayaan haddii Abiy Ahmed iyo Tigray ay heshiyaan waxay ka dhigan tahay ninka lagu magacaabo Afwerki iyo Abiy isku dhacay marka Abiy uu ku qasban yahay inuu Tigray garab siisto Eritrea si toos ah loola wadagal Eritrea meesha ka timid lagu celiyay siyaasadda Itoobiya xididada looga siibo ay sidii weyn ugu dhaxburantay marka axmaaradan hadda si yaacaysa halkaas ay qodobada garab ka deeyaan si ay halkaas garab uga helaan oo Abiy Ahmed loogu cadaadiyo inuu hawshiisa halkii ka sii wado Tigraygana loola dagaalamo marka waa afar gees baa loo kala fadhiyaa hadda waa axmaari Eritrea iyo Tigray iyo Abiy Ahmed marka hawshu aad bay u cakirantay wax la saadaalin kara markasta wax isbedel baa ka dhici kara dalka shida waan ku soo noqon doona xaaladihii ugu dambeeyay dowlad deegaanka Soomaalida iyo waliba magaalada Addis Ababa oo la tilmaamayo inay ka socdaan shirar waaweyn oo xisbiga EPP waa xisbiga barwaaqo uu ku yeelanayo waan ku faqidi doonaa haduu rabeed ma qodobkaasi balse marka hore saaxiibkay ninka lagu magacaabo gooniyow asxaabtii mucaaradka ee Somaliland waxa la tilmaamayaa in ay walaac weyn ka muujinayaan aan idhaahdee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood bayaano iyo arrimo fara badan bay ka hadleen maxay ka hadleen horta waxa malaysaa in isbedel weyn oo ku yimid nimanka la yiraahdo mucaaradka Somaliland maadaama xaaladii sida ay rabeen ama qorshihii ay rabeen meesha oo ka baxay maalintii waxay taageereen qaabka wax u wada Somaliland waxayna sheegeen in la isgarab istaago garabna la siiyo ciidamada qaranka Somaliland hadda way isbedeleen maadaama qudaartii iyo maxalliga sahaydii laga xiray Somaliland haddana wuxuu ku ninka yiraahdo Faisal Calaaro ku baaqay in xaaladii sidii hore aysan ahayn wuxuu sheegay in talaxuma Musabixi Cabdi iyo garaadada SSC ay keeneen ay arrintan ku timid maadaama hal bil iyo bar ay si socoto wax wada hadal iyo isku soo dhawaashan oo san jirin marka waxay sheegeen in arrintaasi laga waantoobo in SSC ay u turaan dadka shacabka Musabixina uu turo dadka shacabka ugu dambeynna wada hadal la gaaro ciidamadana la kala qaado xaaladana la qaboojiyo arrintaas marka waxa u malaysaa in isbedelka ku yimid darteed oo qudaartii iyo wixii laga xayray iyo waxyaabo u soo gali jiray Somaliland darteed culays weyn inay dareemeen reer Somaliland marka taas darteed ayuu u leeyahay isla markiina Faisal Calaaro waa isbedelay wuxuuna leeyahay talaxumada Musabixi iyo lagu daysanin reer SSCna ka waantoobaano in dhibaatada oo ninkaas geenayay ku daysanin ha joojiyaan xaaladana ha qaboojiyaan dagaalkana wuxuu yiri dib hal isugu laabto hal joojiyo gab ahaantiisa fargodo marka ma cunaqabataynta ay saareen ba arrintan keenaysa dhanka qudaartii maadaama bilka madaan lagu jiro baabuur fara badan oo qudaar wada oo ka iman jirta koonfurta Soomaaliya ay meesha ku xanaban yihiin magaalada Buuhoodle marka ma arrintaas la xiriirtaa sababtoo waxa way bil Ramadaan lagu jiro waa sheegtay in qudaartii iyo wixii iman jireen malahan in dhulka Somaliland qudaartii intooda badan 90% waxay ugu imaadaa dhankaas koonfurta Soomaaliya marka ilaa iyo 50 baabuur oo qudaar sida ayaa ku xayiran deegaanada SSC iyo dhankaas maxalliga waliba Buuhoodle iyo kala xiriireen Laascaanood ayagoo labada dhinac isku dayay teeda kale waxay u kiishan leeyahay beesha Gabooye inay soo gudbiso qudaartaasi ayagoo dhahayo in ganacsiyada beesha Gabooye iskale maadaama ay guddiga SSC 33 ay kamid yihiin in maxalliga SSC inay kamid yihiin nimanka la beesha Gabooye
Somaliland waxay u wakiilatay inay soo gudbiyaan khudaartaasi ayna dhahaan ganacsatada Gabooye ayaa iska leh si xaaladda loo qaboojiyo maamulka SSC ay u ogolaadaan in loo fasaxo khudaartaasi. Marka qorshe kale ayaa halkaas ku jiro Fargodow. Waxaa kaloo la dhihi karaa arrintani ma ahayn arrin soo dhammaanayso iyadoo weli faraha la isku fiiqayo. waad mahadsan tahay gooniyow. dhanka koonfurta Soomaaliyana waxbaan kaa weydiin doonaa hadduu rabbi idmo, laakiin waxaan u leexan doonaa dhanka iyo saaxiibka Shido oo indhawaalaba indhaha ku haya dalkaasi Ethiopia iyo weliba qodobada iyo xaaladaha ugu dambeeya ee kasoo kordhaya. Shidow, maxaa ugu dambeeya dowlad deegaanka Soomaalida? waxaa la tilmaamayaa in mucaaradka dowlad deegaanku ay indhawaalaba ka shirayeen arrintii Karamardho oo soo noqnoqotay. marka maxaa ugu dambeeya? dowlad deegaanka Soomaalida waxaad moodaa in dab lagu soo dhex tuuray. Karamardho waxay noqotay siyaasadda cusub ee hadda dowlad deegaanka Soomaalida si weyn loo hadalayo, iyadoo bulshadu ay kacdoono waaweyn ayna sameynayaan oo shirar xasaasi ah ka soconayaan magaalada Jigjiga oo dhaqameedka iyo dhalinyarada ay guud ahaanba sameynayaan. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida eedaha loo soo jeeday waxaa waaye in una si practical ama si toos ah una bulshada TV wala hadin wixii jirana uu sheegay meeshaan ummad madow ku jiro, dadkuna ay cabsi badan qabaan in Karamardho taala laga dhisayo iyadoo dhismihiisa socdoon la arki doono ciddii markaa ka hadashana waqtigaasi ciidamo talaabo ka qaadayaan. marka arrintaas si aan u dhicin oo looga soo hortago deegaanka Soomaalida waxaa lagu baaqayaa inay kacdoono sameeyaan, dhalinyarada awoodda soo bandhigaan, awoodda diidme ee deegaanka Soomaalida uu leeyahay ee qayaxan in banaanka la keeno si ay dowladda Itoobiya ugu qanacdo. dhawaan waxaan wada ogsooneed in maayarka magaalada Addis Ababa markay Jigjiga ay timid inay dadku aad ugu booqeen, kadibna ay ra'iisul wasaaraha Itoobiya si toos ah iyadu u wacday oo ay tiri arrintaas Jigjiga iga qabsatay, kadibna uu yiri anagu maana ku qasbine Mustafa Maxamed Bal asagaa la yimid arrintaas. oo Abiy Ahmed baa si toos ah naagta ugu sheegay telefoonka iyadoo odayaasha la joogta oo odayaashu la hadleen ayay si toos ah u maqashiisay. marka dadka waxa ay yaabayeen waxaa waye madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida barnaamijka uu asagu wato uu haddana uu leeyahay waxaas waxba kama jiro. marka waxaa loo maanaa waxa hoosaasin ay jirto shacabku inay awoodooda soo bandhigaan, diidmooda qayax banaanka keenaan ayaa abaabulo badan baa ka socda dowlad deegaanka Soomaalida guud ahaanba, iyadoo arrintaas madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida dusha loo saari doono. waad mahadsan tahay Shidow. dhanka iyo koonfurta Soomaaliya maxaa ugu dambeeyay koonfurta Soomaaliya kooxdii Al-Shabaab iyo dowladda xagee kala marayaan? horta maanta waxaa dhacay arrin halis ah oo nimanka shabaab ahaa waxay sameeyeen 2 nin ay soo direen kuwaasoo qalqal gelinaya ganacsiga magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha ayagoo bajaaj soo qaatay, kadibna 2 qori AK47 soo qaatay oo suuqa dadka ku qalqal gelinayo ayaa waxaa la wargeliyay ciidamada NISA. ugu dambeyntiina ciidamadii ayaa kusoo baxay, 2 nin oo qoryaha wadatana way dileen, bajaajkii lagu wadana gacanta ay ku dhigaan. marka waxaan xaqiijin karin in darawalkii la qabtay iyo inuu baxsaday iyo in la toogtay asaga, laakiin 2 nin oo hubka wadatay ee bajaajka soo kireysatay gacanta ayaa waa la dilay, bajaajkana gacanta ayaa lagu dhigay. marka waxaa umalaysaa Fargodow shabaabka markay dadka ganacsatada ay dhahaan keena waxaa la yidhahdaa isheeg ganacsiga canshuurtii wixii laga rabay ee shacabku ay diidaan inay handadayaan ama qoryo soo qaadanayaan oo bajaaj soo kireystaan meelaha intay ka soo baxaan ay u tagayaan. marka arrintaas maanta way ku fashilmeen. waxaa kaloo jirto dagaal ka dhacay duleedka degmada Daynila gaar ahaan beerta Cali Mahad halka loo yaqaano oo ku dhex maray ciidamada Haramcad iyo shabaabka, taasoo arrinnimadii hore saa ka dhacay iyadoo ciidamada Haramcad ay weerar ku ekayeen deegaanada ay shabaabku ay ku sugnaayeen. marka beertaas Cali Mahad dhowr mar ayaa lagula dagaalamay ciidamada NISA iyo shabaabka ku dagaalamay, haddana Haramcad iyo waxaa ku dagaalamay shabaabka. mar walba waa laga saaraa deegaankaasi kadibna dib ay ugu soo laabtaan. marka waa dhibaato aad u weyn. shabaabku waxay isku dayaan in dowladka Muqdisho iyo ayaga Muqdishoba ay ku sugan yihiin, dowladuna ay kula dagaalamayso aadayabaal iyo meel ka sii fog iyo maxaas, intaasoo la dhihi karo waa dhibaato aad u weyn. dowladdu waxaa loo baahan yahay inay marka hore gobolka Banaadir ay ka sifayso nimankan shabaab maadaama ummadda ay dhibaato ku hayaan in 16 sano ka badan ay shacabka dhibaateynayaan Fargodow. aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal. qaybtii dambe ee barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay, waxaana ku faaqidaynaa xaaladihii ugu dambeeyay geeska Afrika. Shidow, haddaan dib kuugu soo noqdo Addis Ababa, waxaa la tilmaamayaa in shirka xisbiga EPP ay indhawaalaba kulamo ay yeelanayeen, inkastoo khilaafaad xoogan uu hareeyay oo qowmiyadda Amxaaradu ay wado. marka qowmiyadda Amxaarada maxay u muuqataa iyo shirarkan haatan ka socda Addis Ababa? kulamadan waxaa waaye waa gogol xadh horta. waxaa lagu gogol xadhayaa soo dhaweynta Tigray ee mar kale inay yimaadaan fagaarayaasha siyaasadda. marka isbahaysi isxulufays aad u ballaaran jira, maadaama dowlad deegaanadu ay markii hore ahaayeen kuwa barbar ka raran, hadda in la kala saaraa la rabaa. inay wixii Abiy Ahmed ku faylsan inay wadada ku toosaan, wixii kasoo horjeeda ee xamaarada fikirkeeda raacsan inay wadadaas ku toosaan. marka deegaanada lagu dagaalamayo waa Soomaalida iyo Canfarta iyo Benishanguulka iyo Walayta, deegaanadaas
shucuubta koonfureed laisku dhaho yaa lagu dagaalamaya marka xulfayalka ka jira axmaarada awood kale waxay noqdeen oo abiy axmedkii toosh ku shidaya oo markasta codka video isticmaalaya ama dowlad deegaanadii sida soomaalida oo kale tii canfartii oo kale u hanjabaya oo dhahaya tan annaga u dhalan tan annaga u dambeyn doona ciddii fikirka qaadan weyda talaaba laga qaadaya iyadoo abiy axmedna ay ugu hanjabayaanba inay inqilaab wax walba ay ku samayn doonaan marka hawsha la isku haystay xisbiga barwaaqo ka dhaqaaqlaya waa qoomiyadda axmaarada iyo qoomiyadda oromada oo meesha isku haya hawshan waxay u badan tahay in axmaara laga adkaan doono booska axmaarada tigray oo sacabeynaya oo daalan oo 2 sano dagaal soo galay oo yesman ay iman doonaan guud ahaanna ay axmaaradu marka axmaarada ay noqon doonto xoogga sida weyn loo waarsado halkaas bayna xaaladda Itoobiya maraysaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin shida iyo weliba gooni oo inta badan ka faalloonaya xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaas Itoobiya iyo weliba Soomaaliya dawadayaal barnaamijkeena faaqidaada inta ayaan kusoo gabagabeynayna tan dib dambe u kulmi doono mid kan mid lamid waxaan kaga teganaa sidaa iyo nabadgelyo